arag wanaagsan kulan kale oo xiiso leh maanta muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa noocyo kala duwan oo markaas wadankan Jarmalka lagu yimaado ayaa jira laakiin qaabka ugu badan ee dadka Soomaalida aanan ahayn ay wadankan ku yimaadaan sida Hindiya, Bangladesh, Pakistan, Vietnam, Brazil dadkaasi qaabka ay wadankan Jarmalka ku yimaadaan ayaan maanta muuqaalkan kugu la wadaagi doonaa haddii aad Soomaali tahay oo aad ka faa'iideysanayso runtii waa arrin fiican haddii ay tahay markii kugu horeysay ee bartan hoylka shacabka YouTube aad soo boqoto waxaan ka codsanayaa qaybta hoose ee gudubka subscribe-ka inoo riix si markii muuqaalada halkan aan soo dhigno ay toos kugu yimaadaan oo aad ka mid noqotay dadka ugu horeeya ee muuqaalada daawada farsamooyin ama qaab waxa jira ay dadka ajaanibta wadankan Jarmalka ay ku yimaadaan dadkaasi badankood waxay ka yimaadaan Asia qaaradda Asia ka yimaadaan sidoo kale Brazil ay ka yimaadaan Vietnam ay ka yimaadaan Africa laftirkeeda dadka yimaada ayaa jira laakiin dadkeena Soomaalida way ku yar yihiin haddaba haddii aad Soomaali tahay waxaan kugu la wadaagi doonaa oo aan muuqaalkan ugu talagalay waxay tahay haddii aad ka faa'iideysanaysid farsamooyinka ay dadkaasi sameeyaan ee wadankan ku yimaadaan in aad adiguna samaysid laakiin waxay ku xiran tahay adiga iyo qofka tahay ayay ku xiran tahay waxa jira kaar la yiraahdo Blue Card Europa ama Blue Card EU ayaa jira oo aad qaybtan hoose ka arkaysiin haddaba kaarkan muxuu yahay kaarkan ayaa la xareystaa markuu ku soo baxana wadanka Jarmalka ayaa la yimaadaa haddaba maxay tahay muxuu yahay kaarkan sidee si loo xareystaa maxaa lagaaga baahan yahay kaarkani buluuga ah wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo muhiim ah marka loo eego ogolaanshaha kale ee Jarmalka uma baahnid inaad Jarmal taqaanid si aad u hesho kaarkani buluuga ah qofkii haysta kaarkani blue kaarka ah ee EU wuxuu ku heli karaa ogolaansho dejin ama ogolaansho dib u dejin ah gudaha Jarmalka 33 bilood oo kaliya halkii uu ka ahaa awal 4 sano ayuu ka ahaa awal laakiin hadda waa 33 bilood oo kaliya taasi awgeed waa inaad cadeysaa aqoonsi hoose oo luqadda Jarmalka ah Blue Card ee la yiraahdo markaad xareysanaysid waa inaad ku dartaa warqad B1 waa inaad ku dartaa laakiin muhiim ma aha baa lagu yiri waxaad ku heli kartaa baa lagu yiri haddii warqadan B1 ama shahaadada B1 aad ku dartid waxaad ku heli kartaa 21 bilood gudahood baa lagu yiri halkii ay awal hore ahayd 33 bilood ay ka ahayd marka waa fursad aad u wanaagsan haddii uu qofku sameyn karo habka la fududeeyay ee isku keenida qoyska sayga xaaska iyo caruurta waxay kula guuri karaan baa lagu yiri Jarmalka macnaha haddii kaarkan mar lagu siiyo waxaad awood u leedahay xaaskaaga ama xaajiyadaada iyo ilmahaaga adigu familkaaga ama nin ahow ama qof dumar ahow inaad soo qaadatid oo ay Jarmalka kula soo degaan ayaad xaq u leedahay haddaba faham qaabkan mana ahan qaab qaxootinimo ugu yaa kaarkan markaad heshid oo kaarkan aad xareysanaysid marka hore waxa muhiim ah in aad Jarmalka shaqo ka heshid marka waa qaabka xirfadaha dadka loogu soo qaado Jarmalka lagu keeno marka inaad Jarmalka xirfad ka heshid ama sidaas oo kale inaad xirfad ama aad leedahay oo qof macnaha xirfad soo bartay aad tahay ama sidaas oo kale waa in aad tahay qof macnaha dugsi sare ka soo baxay ama jaamacad heerkeeda kuwaad ka soo baxay oo markaas xirfad uu ku shaqeystay yaqaan muhiimadu waxay tahay oo ay rabaan ayagu qof u shaqeeya ay rabaan macnaha qof Jarmalka shaqo laga siiyo ka shaqeynaya haddii marka aad Jarmalka shaqada aad ka heshid waxa waaye kaarka lagu siinayaa muddo yar gudahood kadib waxa lagu siinayaa citizen caadi ayaad noqonaysaa laakiin markii ugu horeysa aad inta timaadid wax yar adoo jooga ayaa familkaaga lagu soo qaadaya haddii aad markaas ilmo iyo leedahay halkaan keensanaysa way kula degnaanayaan marka awood baad leedahay markaas qof shaqeysta ayaa tahay marka meeshaan kuma xusna in ayagu lacag ku siinayaan ama lacag cayra aad qaadanayso kale ama arrimo qaxooti oo kala dhan ma aha processkan wuxuu quseeyaa kaliya
dadka waxbartay dadka aqoonta leh bas uu quseeyaa laakiin anaga Soomaali hadaan badankii wax maana baran runta markii laga hadlo moogta laakiin hadii aad wax baratay oo qof Soomaali aad tahay runtii uu ku anfacaya hadii aad xataa qof kale oo ajnabi oo aad istaqaanin xataa uu jiro xataa waa la wadaagi kartaa marka application-kan xareyso si nadiif ah oo sharciyeysan ayaad wadankan Jarmalka ku imaanaysaa waad ka shaqaysanaysaa familkaaga iyo asxaabtaadana waa keensanaysaa haddaba muuqaalkan uu hadlayay Blue Car AU intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa inta muuqaalo kale ku kulmi doono waxaad ka tegayaa sidaas iyo nabad